meeshaan qaraabada isugu timid oo malaaqa u weyn yahay dhaqanka qaraabadoo dhan odayaasha gabdhaha walaalahayna kulli waa salaamantihiin salaan kadib aniga uma soo joogsanin in aan maaragtay hadal oo bilaa macni aan isaaga hadlo waxaan rabaa hadal yar oo kooban oo cilmiyeysan inaan ku hadlo muxuu yahay hadalkaas waxa waaye dadka beeshaan ka dhashay ee galmaax yoonis cid laga qarinayo ma jirto waa dad ku sifoobay nabadgelyada iyo ammaanka iyo walaal jacaylka iyo marti soo dhoweynta laakiin wixii oo dhan waxaa isku fuuqsaday shiribka oo hadda walaalkay sheegay oo kale mid ahaa jiray oo faarax seefey yidhi dhaqaalkaad soo dhawaysataa dhulka anaa lahow dhaha dhaqaalkii la soo dhawaystana dhulka anaa lahow dhahaa marka ugu dambayda waa la ogyahay waana tigaana hadda nahayda ha u qaadanina wax kale dhaqaal aan soo dhawaysanay ayaa dhulka anaa la dhahowhaya maanta waxaa la rabaa marka annaga soomaali markay kala tagtay ay kala irdhootay ay maaragtay luuq walba aaday dadka isu jerinaayey ninkii diyaaradaha soo ijaaray anigoo ahay welina daynkeedu waa ku leeyahay cali mahdi khayr allaha siiye maaragtay lacagtii aan dadka ku doonnay marka dhididkaygii dhiiggaygaa weli ku jira oo aan ku doonnay ummaddaas oo aan gaalkacyo ku raadinay oo aan boosaaso ku tagnay oo aan gedo ku tagnay oo aan maaragtay ku tagnay meel walbo ninkii soo kireeyaan ahay aniga oo hormuudka ka ahay meel dhigo waa dhammaatay soo maa waa la gartay maalinta ay xumaato oo dagaalna waana la yaqaanaa waxaase aan marnaba la qaada karin 70 wasiira intii la magacaabay uusan galmaax hal xabba ku lahayn horta ihaanay nagu tahay ihaanay nagu tahay mana qaada karno mana qaada doonno maxaa kuu soo heray waxaa kuu soo heray nimankan dowladda hadda loo doortay ama madaxweyne ha ahaado ama maaragtay ha ahaado prime minister waxaan u jeednaa inaysan niman dhaqanka oo yaqaano aysan ahayn wax badan ayaa ka qaldan kana hadlaysan albaabada meeshay ka soo gelayaan guriga iyo furaha saxaana ma wataan waxaan rabaa inaan u sheego ninka la yidhaahdo madaxweynaha ninka hadda walaalkay ahay farnacab kuma taagin cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan london markii loogugu soo banaanbaxayay farmaajo ninkii yiriu ahay meeshaan abgaal kaliya looma tumin ee waa in dadka walaalahay noo shisheeyaha wax laga siiyaa xukunka cabdicasiis oo ahay may garatay asaga hataa waa la qadari waayay hadda waa ujeedaa 70 meelna ogama jiriyo marka waa jisaaraan dhihi karaa maxaa jira ninka ku dhiiraday aniga niman shisheeya intii yimideen waxay ugu dhaheen war ninkii cabdicasiis xildhibaan caawa wuxuu yidhi kursigaan abgaal kaliya looma tumin ee waa inaan ummadda kale u dhiibnaa oo aan tusnaa inaan demoqraatigna ninkii saas yidhi hataa maanta waa kaas meeshaa loogaaga tegay laftirkiisa aadaan uga xumahay inuusan ahayn maaragtay dhibaatada laakiin ma aha waxay ka jirtaa nimanka wax noo doonaya ama wax doonanaya ee nin walba cunugiisa oo maaragtay mara 6 yaardiya oo dhabarka intuu ku garaarsado oo leeyahay cunugayga aan ku wadaa waana kanaa ma aha sharaf beeshaan marka hore aan dulmanayn dulmigana inta kama bilaabanin waxaan rabaa inaan u sheego gudoomiyaha baarlamaanka ama aqalka sare ha ahaado ama aqalka hoose ha ahaadee number 1 inaan horta la ballamoon u sheego nimanka la yidhaha aboriginiska oo australia oo ciidda u dhashay waxay ku leeyihiin 10% xildhibaanada oo aan la dooranin ciiddooda ciidday ku leeyihiin ciidda 10% xildhibaanay ku leeyihiin nimanka red indianiska la yidhaahdo oo maraykanka degan 12% ay ku leeyihiin jawaari iyo cabdi xaashi cabdullaahi way og yihiin laakiin haddaan taas weyno waxaa naga soo dhowaanaysa sabarka inuu naga dhammaado aana dhahno marka caasimadda meel kale ha loo rabo waxaan kaloon rabaa inaan ka hadlo xamaaliga la ruqseeyey oo aa og tihiin
madaxweynihii oo hayb aan isku nahay shalay dhahaayay oo laakiin hayb aan nagu ahayn oo colaad kale noo qabay wuxuu uu suubiyey waa ogtihiin dariiqii ayakana hadda ku socdaan laakiin maxay tiri habarti riwaayadii koysta ee barobiyo lamii istiraaday tiri waa jidkaygi waa jidkaygiyay tiri maaragta koysta ee lamii istiraaday tiri istiraadadii maxaa jira fiiriya waxaan rabaa nuur xasan xuseen aa 3 safaaradood laga soo qaaday kama aana hadlin shibaan dhahnay waa u gambanahay waxaan islahayn walaalkiin asaa idin fahmi doona markuu arkay inaan aamusanahay maxamed cali ameerikuu ku soo daray markuu ku soo daray haddana qunsulka turkiya joogaa lagu soo daray haddana waxaa lagu soo daray kii muxuu ahay sugunta sekretariihii jooga meesha la yidhaahda kambala waxaan rabaa marka inaan idiin sheego ilaahaan idinku dhaarshe intaasoo kursina wuxuu geystay dad qaraabadiisa iyo walaalihiisa uu geystay maxaa jira maanta beeshiisa 4 qunsul iyo safiiray leeyihiin annakana bannaankaan taagannahay maaha inaad aamustiin maaha inaad aamustiin maaha nimanaa waxay haystaan maanta sadbursi dhaafay oo meel kasta ayaka mas-uulka ah hal agaasimo guud ma qabtiin galmax yoonisaana la yidhaahaa hal agaasimo guud maanta oo aan qabno oo lagu ceersaayo ma jiro halkaan maskiina hal agaasimo waaxid ka ahay nin eelaay ahaa ka soo raacdiyey shaqada cid u gurmatana ma leh iyo cid ka daba hadasha waxaa la rabaa meeshaan in xaqiiqda laga hadlaa la rabaa waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta maamulkan jira kii horaa ka tegey ee waxaan islahayn yaan la dacaroonin waa la doogsan doonaa waxaan islahayn ka bedeli doonaa ka fiicnaa doona laakiin ninka gabyay wuxuu yidhi isma doorin gaalkan diriya daarta kii galay aniga farmaajo macallinkiisa iskoolkaan ahay waxaana la rabaa qofka bini aadamka iskoola berima luuliyan macallin ugu ahay aniga isagoo intermediate ah anoo shaqada qaranka ah ninka la dhihi jira prime ministerka cali maxamed geedi waxa uu prime ministerka ugu cimriga dheeray u noqday mataqaanin sababta uu noqday mataqaanin wuxuu ku noqday macallinkiisii uu ka duceystay saalim ibrow caliyow macallinka cali maxamed geedi uu ahay wasiirka maaliyadda uu ka dhigtay aniga hadda farmaajo wasiir iga dhigmaba dhihine laakiin beeshayda hadduu wax ka dhigi waay xukunkiisa meel ma tagaayaan idin leeyahay xukunkiisa meel ma tagaaya maxaa jira macallinkaagaan ahay wax yar maaha ogaada macallinkiisaan ahay markaa idin leeyahay wax yar maaha hadduu beeshayda oo xooggaas leh waxaan nahay 4 beelood oo hadda meeshaan fadhido hal jifoo ka mid ah 45 maalmood waxay suubido waa ogtihiin markii laga xanaajiyo dhulkan waa laydinka raraa layidhi 95 technicay waxay ku suubiyeen 45 maalmood beentayniya ya haddii dagaal ay noqotona waa naqaanaa dagaal laakiin weli dowlad jacaylaa nagu jira dowlad jacaylka laakiin haddii ou saan ku sii socdo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaanan leysla deganaahaynin baarlamaankana waa u digaa nimanka kalena waa u sheegaa galmaax yoonisna caasimadda laguma soo celi karo guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaaladana waxaan u sheegaa inuusan mitir dhulka galmaax yoonisa uusan cidna sii karin ilaa xuquuqdooda meel la saaro mitir waayda hal mitir inuusan ka dhiibi karin canshuurta dhulka galmaax yoonis leeyahay hal mitir xildhibaana loo cabiray iyo habar heblaa loo cabiray inaysan suurtoobaynin barkee dadkii deegaanka dhulkooda lahay waa kuwaanaa inay baarlamaanka beriga galmaax yoonis hal qof ku yeeshaan qabiilaan ogahay oo aan deegaan ku lahayn oo hadda inaan magacaabo aan rabinna oo ku leeyahay 3 iyo 2 oon deegaan intaa ku lahayn وريا قبل كبنادر شن تضبي تبنك الدقمو تضبي تبنك الدقمو بقولك اللي احنا يشنقل محيوني سادقن بانتي مياه اوكي كصوتك ما قدك موكلات لا ورشيق هديهن عضله هديهن جوهر هديهن بلعه هديهن راجع الله هديهن وريا مركي لا اسكو دار 20 دقمو قبيل قبا هل عندما قبا ان قال له وظلمي وانا دقنمو وانا دقنمو waxaan rabaa inaan idin sheego maanta runta ha ka gambanina hadday xumaato kaama xoog yariyo yaqaanaa galmaax yoonis hadday samaatana waasaan rabay haddii 70 wasiir aan hal xabba ka weynay waxaan u sheegaynaa caasimadana ha nagala raro duqa magaalada iyo gobernatoorahana inuusan mitir dambo aan leenahay inuusan qofna u cabiri karin qof oo u cabiri karo dambe ma jirto
محاجر هدام بحقوق ذي نكوينينو واتيواي فارح سيفي ودقال كات سود ويستا دول كانا له دا الدوان اللي لده يا سيدي تاجنتها من وحاربنا يلا جنبنا يا جبرنا جهرن يا سنقفنا جهرن حقوق ذي الملكيني مثلا ما كينن هدي حقوق ذي نلكينا والله كينا هدان لكينن والله وبالله وتالله وحان كم ذا اسمها هنا عيدو ملاقين النهر جوجو إن عاصمة ماشي ربان يجيستان دكديننا أن دمارك وحرنه صربنا يلينا عنك محاجر الدكدة بوساسو يمد بربرو يمد محو هاي كسمايو حقوق ذا لقى قاضو كلا إنك لقى قاضيه markaas aan 6,300 xamaali oo annaga aan u badanahay la soo raacday intaas waxa waaye yeysan waxa cunin yeysan qutulyoon cunin waa ujeedada ugu weyn ma hayn ujeedada kale asagana hadda wuu ku raacayaa jidkii uu maro ayaa moogta barabbi waa la mii istiraadadii waa hadday istiraadadaas tahay waxaan idin sheegaa caasimada in la raro malaaqa saxiixa idinka dhanna waa la feermayhaysiin nimanka u qaabilsan hay'adaha caalamka oo jooga dhulkan u joogana waxaan u sheegaynaa hadii dadka deegaanka 70 wasiir ay hal xabba ka waayeen hal lagu kala tago meeshay tagay